beesha Axmed Garaad ujeedka isu kaaya keenay waa inaanu taageero 12 qodob ee 33 guddiga ahaa ee dhulbahante ay soo saareen ee ansixiyeen ayaanu ka usugu nimi inaanu u midaysanahay dhammaantayo raas iyo magaca guudba inaanu 12 qodob hirgelinno oo ku dhaqanno isu qodobka yaga koobaad ee aanu isugu nimi waa ka isin hebel baa maqan hawlgal kasta iyo xoreyn kasta iyo hawl kasta iyo waxqabad kasta cid baa magac ku hesha waxaanu leenahay dhulbaanta waa midaysan yahay nin dan leh iyo nin maqan iyo nin dhakhtar jira yeeyan u baaqanin shirka iyo guddoonka dhulbahante oo xagga isimada ayay u baaqanin hebel baa naga maqan haddaanu nahay isimada intiina joogtaan kulliga yeesimano kii ku soo biirana waa nooyisin taas oo ay ahayd in aynu garab istaagno guddidaas wixii ay inoo soo gooyeen halkan waxaa ku shiraya waa beesha Axmed Garaad ee ku dhaqan gobolka Sool waxa ay u taagan yihiin garab istaaga guddida gobolka Sool ay soo cilaamiyeen qodobada 12 qodob waxaan kaloo halkan u taaganahay in aanu muujino wax alaala iyo wixii gobolka isimadayadu ay soo saaraan inaanu garab taagana haddaanu nahay haweenka gobolka Sool iyo bulshada dhammaan culimada garaadada caruurtii yaryareed ee markay qabsadeen Soomaaliland oo 15 jirsatay aan iyaga cidna waabin karin waxaanu dhammaantay u taaganahay difaaca dalkayaga dhulkayaga 15 sano wixii naga lumay inaanu soo ceshano waanu toosnay waanu baraarugnay 15 sano wixii naga lumay baanu soo ceshanayna insha Allah ninna kuma saboorey xaqan dhinaca saara haddaan maanta sida xaalku yahay qodob suureeyo saxal baa ku yururay isaaq soof mareeba soddonkoodii baa buuxsamo waa sabuul dhalay sandareeraday bixin jireen saaka lagu diid xidigoodii baa seexday oo waysan qadhayaan socon weyda ina kaahinow siriyahuhaa Somaliland diidna Yuusuf Darigale annagoo ah beelaha gobolka beelaha ugu tunka weyn ama dhulbahante waa beesha Axmed Garaad ee gobolka Sool dadkan aynu hadda ka cabanayno ama aynu waxa weeye dhulbahante kiciye isku dhilaabayaan waa dadkii beesha halkan joogta u maara wayday kaligood intay meel walba isaga yimaadeen beeshan qura waa dadkii u maara waayay weeye tiyo dhulbahantoo dhan maanta waxa weeye faras iyo geeyaba u soo fuulay waxay la tahay in waxa weeye subaxa loo dhaqaaqo ayana waxa weeye mari doonaan waajibkooda la marin doono inta kadib waxaan halkan rabnaa inaanu baaq uga dirno beelaha nimankan isaaq ee halkan joogay door ay ka soo jeedaan goboladoodii degan ee kor iyo hoosba loola hadlay waa abhin codkeenu ku biirinaynaa abhinteenu ku biirinaynaa insha Allah asmay ku noqon doontaa waxay noqon doonaan dad igla socon waaya oo gacantooda ay taagaan ay waxa weey cidla marto tii duurka lagu tuurana uu 2 qof iyo 3 qof dilo marka waxaanu leenahay war dadkiina halkan jooga ee ummadan inta badan silcinayay rafaadinayay gobol falada badan iyo dhibaatada badan ka geystay maanta dadkii halkan joogay waa kaceen arinta waa ka gilgisheen waa ka dhiidhiyeen waxa ka soo socdana waa dhibinta ka fara badan war maanta ladantiina dadkiina ka haysta marka beelweynta Axmed Garaad ee ku dhaqan gobolka Sool
sidii jaamacuu yidhi beelaha macnaha degan Axmed Garaad oo kaligiisa iyo dhulbahantaha ayaa hagaajiyay oo baabaha ka dhigay oo meel daran iyo reero muskood ka tuuray meel daran iyo reero muskood baa laga tuuro baqtigood iyo meydkood bay kala guran waayeen oo aasan waayeen waaba iyadoo maanta dhulbahante oo midaysan uma taqaanaa isugu tagayo marka waxa weeye Axmed Garaad waa reerka aad taqaaniin ee kal shaale inta isku qabsateen idin hagaajiyay huf iyo hambagooda idin ka dhigay sidaana waa biyo sababtu waxa weeye teenu naabaal maxay ku noqonaysaa xaq baynu ku taaganahay waa naabaal ciidda iyo halka ay taagan yihiin dhulkaba waa ku ololinaysaa hal la ka soo hari maayo nin walowba qorigaaga qaado oo nin walowba diyaar garow oo annaga haweenkaaba idin garab taagan waa idin garab taagana waxaan leeyahay idinkama maqnaa inaad u caqli celisaan idinkama maqnaa inaad garataan dulmiga ay ku hayaan dadka kan waxaan odhan lahaa oo aan idinku baaqayaa intaan dhibaatayna dhexmarin dhiiggiina ma rabno inaynu culowno ma rabno inaynu waxsiyeelo waxaan doonaynaa inaad dhiiggiina intaanu dhibaato badan inoo keenin oo dhiig daataa uusan dhib badan ina dhex keenin oo aan fududaanayn ee ballaadhanaya hadduu halkaas ii dhaafo inaad la baxdaan raggii wiilashiina ciidamadiina inaad la baxdaan wax u sheegtaan aydan ku hadlaynin Muuse Bixi iyo xukuumaddiisa sanina bixi iyo wax la mid ah waxa la yaabka wuxuu yahay Haru Faradhu xaasiyad baro ku caayibale Haru Faradhu min xagees ku aragnay buu war bal dadkan aan wax walba wada leenahay ha joogtay Muuse Islaameedu habara walo sacan Muuse waxa la naagta ay guursadaan waa gowracan toddobaadkan gudaheeda la sheegaya hargeysa ku lagu laayay xagees ku aragnay kuwa colaadii isku gaad waa wax la yaab sidii wax weeye dadkii ugu horeeyay ay sheegeen haddii ay bixi waayaan Axmed Garaad ayaa ugu horeynaya xabadda ugu horeeyayna ku ridayna aan filayaa iyadoo runtii in badan oo dadka kamid ah ay hadleen dadkan buuhood la dega waliba khaas ahaan reerkanu ma aha reer wax dib dhigta si saraaxad leh oo hufan oo muuqata ayaa dhaqankoodu yahay waa naga xaqiiqo koonana awalba waa u joognay sidaan hore u sheegayna waxa weeye annaga baasha nagama wadanto xaqiiq ahaan waxaan marka leeyahay oo aan ku celinayaa oo ku baaqayaa qoladaas dhalinyaradoodu ay joogto meesha waxaan leenahay dad baa dhalay dad bay ka soo jeedaan dad baa waxa weeye nin walba gurigiisa laga tabi doonaa waxaan leenahay maanta wali waa kala dhownahay dhaawac iyo dhib ha jiro laakiin balaayay ka daran tahay waxaan leenahay intaan kala dhownahay waxa weeye guura oo gurigiinni taga arrinka isaga waxaan kaloo ku darayaa waqtiga gabaabsiya in badan baa dadku cabursanaa anaa kamid ah waxaan filayaa waqtigu maanta halkan aynu ku qaadanay inaanu xataa keligay ugu filaadeen baan u malaynayaa maanta waayo wax badan baa isdul saarsaaran oo muuqanaya Somaliland nimanka la baxay oo niman yahow isku dhinaca xumo wadno isku rabitaan manihin waxa la yiri oday reer la gaari waayay ayaa waxa uu la yiri geedka aad sii hadso aan awr ku soo celinay baa waxa uu timi gabadh markaas ay tiri adeer geedka ma kula hadsada oo maxaad ahayd reer geediya baan ka hadhay oo maxaa ka reebay xanuun markooda tobanka laga helay bar halkii taqraaraan baa ku haray ee sheegso waxa uu guntus ka kaxasho furta marka 12 qodob baa taageerinaa waa garab taaganahay hadii la inagu dido 12 kaba waxa qura inoo haray waad garanaysaan waa inuu kaano qori qaadan qura qodobka ay ugu darasay taasina sida weeye bulshada Axmed Garaad baa la yiri inuu Axmed ahaan deewaad codkii rag saaso marka inuu Axmed ahaan inuu kaligaan la dagaalanay Soomaaliland inagoo dhulbaanto dhan wada lama shaki baa inagu jira wax walaa inagu jira iyadoo degmooyinkii dhulbaantay dhammaan iyo degmooyinkii daarood iyo harti diyaar looga yahay inagoo kaligaan dagaalanay wax walba miyaad ka qabtaan dagaal ha ka walwalina waliba waxaanu hoodo ku leenahay odayaasha haddaan la sheekaysan jiray dagaalka maalinta dhacay harka cadda ah dagaal garbaa la yidhaahdo dagaal maalmeedku wax ku leeyahay dhalaalaareedku wax ku leeyahay aad arabna waa kii lahaa
garbo iyo ninkii godan dhashaa guulan dheelmadee godka laguma naaro duqina laga soo gooyey gudban inuu caloolgay la sheego waadna garad marka annagu waxaanu caan ku nahay dagaal maalmeedka dagaalka dhoomalaysigaa kuma wacni barta ogaada dagaalka harka caada danteenu ku jirtaa baladii la saleelo kaasaa noo ballaan haddii nabadgelyo naga tegaado gabdhaheenna iyo wiilasheenna iyo magaaladeenna iyo carruurteenna iyo waynu xoraysanaynaa